بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركلة كسر دوادا أكاديمية بايو أكاديمي مقعيكو حسن عينته إن شاء الله تعالى وحنسوق بدون إلهي دمكيس ما دوين كيني سنتيفيكا ما ذاك مذا أو الناقة برتين نسوق بنا عشرة ذا سيدي اللي أمر والبنا سوق بنا ماشان وسوق لنا هدي إلهي كرديكو إن شاء الله تعالى وحنعطينا ديوجا وحلا الصوماليات ardada Soomaaliyeed iyo dadyoga kale bahda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa insha Allah taala in ay nagala socdaan page-ka aan ku leenahay Facebook ee Bayo Academy sidoo kale barta YouTube-ka aan ku leenahay magaceedu yahay Bayo Academy iyadana insha Allah taala waxaan halkan maanta ku soo gudbi doonaa ama aan ku duubi doonaa casharkeena chemistry-ga ahaa qaybtiisii afraad ayaan halkan ku duubi doonaa ama aan ku soo gudbi doonaa Ilaahay idamkiis insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad waxyaabaha aad aragtaan ama insha Allah taala wixii dhibo kaleeto ama qofku fahmi waayo kaleeto inaad meelaha ka sheeg aad noogu reebtaan comments-ka si aan ugu jawaab celino hadii Ilaahay ka dhigo waan rajaynaynaa insha Allah taala inaad la wada socon doontaan idinkana wax naga faa'iideysan doontaan annaguna aan diyaar idin lahayn mar walba inaan idin soo gudbino wix allaala wixii Allah naga fahamsiiyay maadooyinka aan soo gudbinayno insha Allah maadadu waa chemistry fasalku waa fasalka afraad ee dugsiga sare إن شاء الله تعالى وعشر كي أفراد أيان سوقت بدونا هدي إلهي كردو chapter كيني كوباد أيان وليك بود جرنا ومقعي سؤال هيدروكربونيس أيان وليك بود جرنا عوان كين ما انت هل كان أنكو قاعدة ليك دونا ما أنكو فلغي دونا إلهي دم كيسو حنغندونا إن شاء الله ايسومريزم الكين كا ايسومريزم كإليهين أما يسميان أيان هل كان كسو قد بينا إلهي إن شاء الله تعالى sidaan naqaanay marka isomerism ku ama isomerska waxaan u naqaanay ama aan ku soo barajirnay ama aan markii aan galaasmaha kale chemistry-ga aan joognay sida dugsiga sare qeybihiisa kale isomerism sidoo kale isla qeexitaankii un baa halka noogu qoran isomerism mar walba waxa lagu qeexaa ama definition-kiisu uu yahay waa molecule leh ama waxa la yiraahdaa waxa lagu qeexaa waa molecules kuwaas oo leh molecular formula isku mid ah laakiin ku kala duwan structural formula waxaan leenahay isomerism-ka waxa ay leeyihiin same molecular formula ay leeyihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin structural formula why because of their different structures maxaa yeelay waxa leeyahay waxa ay leeyihiin qaab dhismeedyo kala duwan ay leeyihiin isomerism-ku sidoo kale astaamo properties ay leeyihiin sidaa darteed waxaa leeyahay they are different compounds waxay ka kooban yihiin isku dhisyo kala duwan alkaniska waxa ay ka ay macnaha maadaama hadda alkane aan ku jirno isomerism-ku waxa ay sameynayaan different structures ayay sameeyaan mar walba sidoo kale alkaniska waxaan leenahay alkaniska aan maanta halkan uga hadli doono isomerism-ka waxaan leenahay waa kala duwanaan doontaa markii aan joogno aan gaarno hadii la yiraahdo alkeenka iyo alkeenka qaabka isomerism-ka way kala duwanaan doontaa qaabka structure-ada hadii la yiraahdo alkeenku kan waa single bond dhamaantiis waxaan ku qeexnay isomerism si haddaan hal mar hadalka soo koobo waxaan ku qeexnay were defined molecules with same molecular formula but different structural formula oo macnaheedu tahay waa molecule leh qaab dhismeedyo molecular formula isku mid ah laakiin waxa ay ku kala duwan yihiin structural formula ay ku kala duwan yihiin waayaha molecular formula waxa laga wadaa structure-ku markuu qaabkan yahay oo shortcut uu yahay ayaa molecular formula yiraahdaa marka uu yahay maxaan ku raadaahay waxaa jirta caadiyan dhowr structure ay kala jiraan oo kala ah molecular structure condensed structure iyo structural structure marka structures-ka waa kala duwan yihiin marka condensed-ku wuxuu noqonayaa qaabkan molecular-kuna qaabkan noqonayaa marka isomerism-ku waxay leeyihiin same molecular formula oo noocan ah laakiin structure-ka qaabkan ah ayay ku kala duwan yihiin tusaale 4 carbon waa hadda meeshan waxa noogu taalo halkan waa molecular formula waa 4 carbon iyo 10 hydrogen sidoo kale halkan waa 4 carbon oo 10 hydrogen oo normal alkane ah halkan waa isobutane oo waxay sameysay dabcan structure kala duwan ayay leeyahay sidaa darteed
waxaan leenahay marka halkan waxaan ku haysanaa hadda 4 carbon oo ilaa 3 structure oo kala duwan sameysay marka waxaan leenahay same molecular formula but different structural formula ayaan leenahay waayahay waxaan leenahay marka saddexda ugu horeyso memberska ugu horeeya alkane-ka ee kala ah methane iyo ethane iyo propane saddexdaas the first 3 memberska saddexdaas laga wadaa waxa ay leeyihiin kaliya hal structure ayay sameyn karaan one possible structure ayay leeyihiin therefore the number of the possible structures ama the possible isomers of alkanes other alkanes ay leeyihiin waxa lagu xisaabiyaa qaacidada tan oo ah 2 power n minus 4 plus 1 ayaa lagu xisaabiyaa n markasta waxay u taagan tahay number of carbon atoms ay u taagan tahay meesha marka la diiwaan ku soo dul maro waxaan leenahay saddexda ugu horeysa alkane-ka iyagu waxaa leeyahay hal structure ayay leeyihiin ama possible structure possible isomerism oo hal ah ayay leeyihiin waaya sidaa darteed inta kaleeto ee kasoo hartay waxaa lagu xisaabiyaa qaacidadan ayaa lagu xisaabiyaa oo ah 2 power n minus 4 plus 1 ayaa lagu xisaabiyaa sidaa darteed n waxay u taagan tahay ama ay cadaynaysaa number of carbon atoms ayay cadaynaysaa haddaba ogsoono ayaa lagu yiri this is only applicable waxaa applicable up to the 7 carbon atoms waxaa lagu yiri marka qaacidadan kor ku soo xusnay oo ah 2 power n minus 4 plus 1 waxaa lagu yani lagu maxaan ku raadahay qaacidadan waxaa lagu dhisi karaa kaliya ilaa 7 kaarboonka 7aad ayay ku eg tahay sidaa darteed meeshan waxaad ka fahmaysaa maadaama lagu dhahay saddexda ugu horeysay alkane-ka ama memberska ugu horeeya alkane-ka ma laha wax isomerism ah marka laga reebo hal structure ay sameeyaan ma laha marka haddii lagu dhahay waxaa kasoo heraa 3 7 hadii laga jiro 4 noqonayaan 4 carbon ayaa qaacidadan loo isticmaalaa marka 4 carbon oo kasoo bilaabato butane pentane hexane iyo heptane afartaas ayaa loo isticmaalaa qaacidatan inta kaleeto qaacidooyin kala duwan ayay leeyihiin meeshan haddii aan horu socno qaacidooyinka ay leeyihiin waxaa kamid ah kaarboonka 8 qaacido gooni ayuu leeyahay kaarboonka 9aad isna qaacido gooni ayuu leeyahay kaarboonka 10aad iyo wixii ka dambeeyay hal qaacido ay leeyihiin kaarboonka 8aad tan waan aragnaa waa ilaa kaarboonka 7aad waa 2 power n minus 4 plus 1 kaarboonka 8aad waxa uu leeyahay 2 power n minus 4 plus 2 ayuu leeyahay kaarboonka 9aadna waxa uu leeyahay 2 power n minus 4 plus 3 ayuu leeyahay halka kaarboonka 10aad iyo wixii ka dambeeyay iyaguna ay leeyihiin 2 power n minus 1 plus waxaan yiraahdaa 2 power n minus 4 plus 1 bracket plus n yani inta marka aad sameyso waxaad ku diraysaa n inta haysato n waxaan dhahnay number of carbon atoms tusaalahan haddii aad 10 haysato 10 carbon haddii aad haysato marka aad ka wada shaqeyso wax meesha ku yaal ayaa 10 ku darsanaya 11 haddii aad haysato 12 ku darsanaya saas waa n waxay u taagan tahay number of carbon atoms hore aan socono marka waxaan example koowaad aan fiirino waxaa lagu dhahay waxaad sawirtaa draw the 5 isomerism hexane-ka uu leeyahay sawir ayaa lagu yiri ama natus okay the possible number structures of hexane-ka qaabkan ay u dhacaan laakiin in ay horta 5 yihiin qaabkan ku soo saarna waa qaabkan n 6 ayaan la siiyay booska n waxa qaacidadan waxay 2 power n minus 4 plus 1 ayay ahayd booska n waxaan ku bedelinay qiimaha n oo 6 ayaan ku bedelinay minus 4 ayaan ka jaray plus 1 waa qaacidadii kamid tahay kuwaana soo kala jaraya 2 way noqonaysaa plus 1 ka bacdi waxay noqon doontaa 4 halkan markii la wajibaaro 2da markii la wajibaaro waxay noqon doontaa 4 ay noqon doontaa plus 1 sidaa darteed ugu dambeyn waxa ay soo bixi doonto 5 ay soo bixi doonto marka halkan hadii structure hadaan fiiriyo 1 2 3 4 5 structure ayuu leeyahay alkane-ka ama hexane-ka waxa uu sameeyaa 5 structures oo kala duwan ayuu sameeyaa halkana waa ku soo saarnay iyagoo structures ahna halkan ay noogu yaalaan aad iyo aad waxaan halkan ka geli doonaa hadii la yiraahdo physical structure ama physical properties of alkane-ka uu leeyahay alkane-ka physical properties-kiisa ama astaamihiisa u muuqday aan halkan ka geli doonaa hadii la yiraahdo alkaneska waa non polar compounds sidoo kale alkaneska waa non polar compounds waxayna ku milmaan solvents ah non polar yani qaacido waxaa jirto dhahayso dissolves like dissolves oo laga wado tusaale shaygan hadduu polar yahay wuxuu ku milmaa shay polar ah hadduu non polar yahayna wuxuu ku milmaa non polar maadaama alkaneku ay non polar yihiin wuxuu ku milmi doonaa milme non polar ah ayuu ku milmi doonaa waaya numberka labaad waxaan leenahay the first 4 members of alkane the first 4 members of stringane waxaan leenahay alkaneska oo kala ah methane ethane propane iyo butane waa gases sidoo kale next 13 13 ku xigto afartan
waxaa la leeyahay waa dareere hal kuwa ka bilowdo kaarboonka 18aad ilaa wixii ka badanna waxaa la leeyahay waa wax solid waa kuwa adkaa alkaniska waa kuwa يعني كعد أما lighter than water وحليه يعني طالعان lighter than ككلتو حام قال قفتنا حيابها يشيك تنسيجر ككلتو مركو برغة وحيابها سلوا ذيك سدا مركا الكينسكو lighter than water يعني هو كوا كعد أما طالعان كلتو كخفيف سن بيها كلتو chemical properties مركا السما chemical اللي هندا أنفيرنا مركو حالنا الكينسك are generally inert towards acids, bases, and oxidize and reduce agents. طبعا الكينسكو waxay sameeyaan inert towards oo kala ah aashitooyinka iyo base-kii sidoo kale inay sameeyaan ama electron ay qaataan ama sidoo kale electron ay lumiyaan oxidizing and reducing agents ayay inay sameeyaan sidoo kale marka waxaan leenahay alkaniska waxa ay ka qaadaan ama ay maraan laba reaction ayay inta badan certain conditions marka jooga labadan reaction ayay maraan oo kala ah substitution reaction iyo combustion reaction substitution reaction hadii aan fiirino substitution reaction waxa la yiraahdaa one atom ayaa la barbixinayaa waxaana lagu bedelayaa another atom ayaa lagu bedelanayaa in substitution waxa laga wadaa substitution reaction one atom is replaced by another atom hal atom ayaa waxa lagu bedelanayaa ama lagu barbixinayaa hal atom oo kaleeto sidaa darteed generally marka alkaniska undergo substitution reaction with halogens waxa waxyaabaha lagu bedelanayo inta badan ama waxay noqdaan waxyaabo halogenes ah ama curiyaasha loo naqaan halides ayaa inta badan dabcan waxyaabaha sameeyo barabixinta sameeya ay yihiin baa leeyahay in the presence of the light marka light wuxuu u fududeyn doonaa dabcan in meeshan uu isbedelasho ay ka dhacdo ayuu u fududeynayaa maadaama la joogo reactions marka reactionka noocan waxa loo yaqaanaa halogenation ayaa loo yaqaanaa addition of halogen ayaa laga wadaa halogenation ayaa loo qaadaa salaan methane ayaa waxa lagu daray bromide ayaa lagu daray waxaana soo baxay methyl bromomethyl ayaa soo baxday iyo hydrobromic acid ayaa soo baxay marka dabcan wax kale meesha lama sameyn afartii hydrogen meeshan taalay ayaa waxa lagu bedeshay hal hydrogen oo kamid ah waxa lagu bedeshay labadii bromine meeshan taalo mid kamid ah kadibna waxa isqabsaday meeshan methyl iyo brom ayaa isqabsaday dabadeedna hydrogenka halkan laga soo barbixiyay iyo brominti kale ayaa iyaga isqabsaday waaya waxaan ugu dambeyn fiiri doonaa hadii la yiraahdo combustion reaction oo ah falgalka gubitaanka kii hore wuxuu ahaa substitution reaction oo ahaa yani falgalka ama habnaanka bedelitaanka iyo waxa kan wuxuu noqon doonaa combustion reaction oo ah falgalka ama hanaanka gubitaanka ayuu noqon doonaa waaye alkaniska waa la gubaa in presence of sufficient oxygen alkaniska waa la gubaa markay helaan oxygen ku filan si u sameeyaan ama ay u soo saaraan carbon dioxide iyo biyo iyo sidoo kale kul ama kul tamareed si u soo saaraan reactionka noocaana waxa loo yaqaanaa complete combustion waxa loo yaqaanaa complete combustion oo ah gubashadii dhameystirneed ayaa loo yaqaanaa dabcan marka reactionada hadaan fiirino tusaalahaan oo kale methane waxa lagu daray oxygen waxa soo baxay carbon dioxide plus water halkan waa ujeedaa butane waxa lagu daray oxygen waxa lagu daray carbon dioxide plus water soo baxay kulligood waa noocaas marka halkan waa alcohol waxa soo baxay biyo oxygen lagu daray waxa soo baxay carbon dioxide plus water dabcan waa noocaas marka reactionadan labada noocaas oo kala qaadayna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad ku mahadsantihiin dhegeysigeena waxa la wixii comment inaan riwi doontaan waan rajaynaa insha Allah arday baanahayo ubaxi wadankanahayo